garaadada iyo cuqaasha iyo waxgaradka soo imaamatay ee dagaal u soo imaamatay ee aan waliba dharkii dagaalka soo gashan ee iyagu hooshaaraya ee dhalinyarada ama caabud waa ka keen ama jigjiga ka keen ama goday ka keen ama Puntland ka keen Soomaaliland ciidankeeda dadka mid la dhaqaajin karaya ma ku talagal haddii ay hore sheekadu ku liqi weyday oo reer Soomaaliland dagaalkooda iyo xabadooda xanuunkeeda aad u arki weyday haddaad arkaysaa ee meel u dhigo ha cararin ha cabaadin saasan ku talinayna waxaan ka hadlayaa dhowr qodob oo ku saabsan Soomaaliland iyo arrinta Laascaanood guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool Laascaanood in dhawaale mashaqada iyo dhibaatada Soomaaliland loo soo raray ee laga bilaabay gobolka Sool Laascaano waynu la soconay waana laga dheragsan yahay reer Soomaaliland dhamaantoodna way og yihiin dhagarta iyo dhibka la keenay Laascaanood kuwaasoo lagu soo xawilay oo la soo marsiiyay baxda dhaqanka qaarkood ee Laascaano kuwaasoo ugu badan yihiin garaadada cadawgaasi wuxuu adeegsanayaa haldoorkii iyo cuqaashii garaadadii iyo waxgaradkii reer Sool ayuu cadawga reer Soomaaliland u soo adeegsaday laakiin caalamkuna wuu og yahay reer Soomaalilandna way og yihiin ummadda Soomaaliduna way la socotaa way og tahay cadawgan ku soo duulay reer Soomaaliland ee waliba soo raacay xididka garaadada iyo waxgaradka reer Sool waxaanu maqlaynaa garaadada in badan oo cadawgu isticmaalayo oo leh ciidamada Soomaaliland ha ka baxaan gobolka Sool kelmadda iyada ahi cid oranaysa maaha reer Sool maaha dadweynaha reer Sool maaha shacabka reer Sool ee waxa weeye waa cadawga reer Soomaaliland weeyaan cidda kelmaddan adeegsanaysa laakiin garaadadu afkay ka oranayaan iyagu waa sameecadii codka qaadisay weeyaan marka waxaan leeyahay horta marka hore garaadow Soomaaliland gobolka Sool ka bixi mayso weligeed baanay ka baxin waayo marka hore ciidamada Soomaaliland waxay ilaaliyaan xuduudaha Soomaaliland Laascaanood iyo Sool waxay ka mid tahay Soomaaliland cidda ay ilaalinayaan ciidamada reer Soomaaliland waa Sool garaadada waxaan leeyahay gobolka Sool ciidamada Soomaaliland kama baxayaan weligood kama baxayaan haddii ay xitaa Soomaali oo dhan isu timaado oo soo dagaal tagto oo goobta lagu dagaalamaya ay ahaato gobolka Sool Soomaalida Itoobiya Soomaalida Kenya kuwa kamida qaar kamida weey iyo Soomaaliya qaar kamida oo magac qabiil sheegtay oo magac daarood waliba ku hadlaya dhamaantood hadday isu yimaadaan oo gobolka Sool u soo dagaal tagaan oo af iyo adin iyo dhaqaale midna aanay la hayn ciidamada reer Soomaaliland Sool kama baxayaan waayo Sool ciidanka Soomaaliland wuxuu u soo dagaalamayay 40 sano oo Soomaaliland intay jirtay ka horeysay ayay u soo dagaalamayeen ciidanku Sool iyo Soomaaliland iyo inay xadkooda soo xidhaan 30 sanadoodna Sool waa lagu tabcay oo tacabka intii ugu badnayd ayaa gobolka Sool ama Laascaanood lagu dhisay siday uga baxdaa hadeerto si fudud ciidamada Soomaaliland Sool ka baxaan ciidamada Soomaaliland Sool ka bixi maayaan 7 sano ayaa tacabkii reer Soomaaliland Sool yaala 40 waa lagu soo dagaalamay 40 sano waa loo soo dagaalamay Sool 30 sanadoodna Sool waa la dhisay oo waa lagu tabcay ninka maanta leh ciidamada Soomaaliland Sool ka baxaan miyuu riyoonaya
miyuu dawaqsanye mawaali baa jirta miyaa la riyoonaya miyaa la sakhraansanyahay garaadada iyo cuqaasha la gobolka sool ha ka baxaan ciidamada Soomaaliland miyaana kuwii burco ku saxeexay ee heshiiska ku qaatay miyaanay hayn miyaa la iskhiyaameynayay garaadadu markay burco ku saxeexayeen Soomaaliland in la wada dhisto maantana ay leeyihiin Soomaaliland ha ka baxdo ciidamada Soomaaliland ha ka baxaan sool miyay macquul noqonaysaa miyaa la riyoonaya waxaan ku soo ururinayaa ciidanka Soomaaliland meesha u soo dagaalamay baaba sool ahayd sidoo uga baxana waa adagtay kamana baxay shacab weynaha reer Soomaaliland ama sool ha joogo ama boorama ha joogo taa waa og yahay waana wax mar hore laga soo shaqeeyay oo meel la dhigtay oo lagu heshiiyay in dib loo faarfaaro oo la yiraahdo go'aankii berigii kamaana ma waanu ka baxnay wax soconaya ma marka ay ciidamada Soomaaliland soo galayeen Soomaaliland ee dawladda Soomaaliland la wada dhisanayay miyaa la iskhiyaameynay oo wax la isla markaa yaan la kala aargoosan masaasay xaaladdu ahayd annaga haddaan reer Soomaaliland nahay tacabka iyaga cidda cuntaa way qoomamaysaa reer Soomaaliya oo kuwa haddeer dabkan shidaya ah waxaad moodaa dhagartii hore ee aanu ka adkaanay ee aanu iska saamaxnay ayaad moodaa iminka xaq iyaga inuu soo doonanay kacaabud waaq laga soo wadaa xabaal buu ku soo socdaa ka Itoobiya laga soo wadaana xabaal buu ku soo socdaa ka Puntland laga soo wadaana xabaashiisuba ka soo horeysa waayo xaq iyagii hore ee aanu iska daynay argoosiga aanu iska daynay aanu niri waa Soomaali wax xisaabtami doonaan xaq iyagii ayaa dadkan horta soo wada xalaalahoodina gobolka sool bay ahaan doonaan haddii aanay ka wantoobin taa intaasaan ku dhaafayaa waxaan ku xejinayaa cuqaasha iyo waxgaradka iyo garaadada iyo suldaamada iyo waxgaradka reer Soomaaliland waa inay digtoonaadaan waayo waa laynu ku soo duulay meel shishe iyo meel sokaba waa laga soo duulay waa in markaa ay u diyaar garoobaan sidii ay uga howlgeli lahaayeen cadowga inugu soo duulay dawladdeena reer Soomaalilandna ay u kaabi lahaayeen waa cuqaasha iyo waxgaradka reer Soomaaliland ama sool ha joogan ama boorama ha joogan ama togdheer ha joogan waa madaxda dhaqanka ee aminka ku dhawaaqday colaad iyo dagaal madaxdii dhaqanka kale ee ay u sheegayaan dhawqan uu ku dhacaya iyaguna ha digtoonaadaan waxaan uga sii gudbayaa intaa Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadlay goor hore wuu hadlay oo wixii arrintaasi Soomaaliland bay u taalaa gobolka soolna waa Soomaaliland haddana war dambe oo burinaya aad moodo in odayga xoogay irbadaan lala dhacay ayuu haddana habeen hore hadlayo hada aan meel fadhin oo qiimo dhaca oo ku qiimo dhaca oo jilicsan ayuu ku hadlay waxaan leenahay kursiga ku wareeji Xasan Sheekhow kursiga raggii u soo tabcaday ee u soo dagaalamay ee xamar xoreystay ee aan wada garanayno ee Soomaaliba taqaano ku wareeji kursiga adigu kursigan ma wadi kartid waa lagu jeediyay cadawgii Soomaaliduna wuu suruursanayaa dib u soo urursanaya waxay kula maagan yihiin inay xamar la wareegaan kursiga ku wareeji raggii u soo dagaalamay dalka Soomaaliya Muqdisho aanu joognay 91kii ee habargidir warni habargidir ku wareeji kursiga ku wareeji waayo adigu mid marba loo sheekayn karayaa tahay mid la dhici karayana waa tahay mid la dagi karayana waad u eg tahay xilkana nin gudan karayo uma ekid ayaynu leenahay Xasan Sheekh Saga cidda la garanayo ee haddeerba xamar difaacata waa la garanayaa ciddaasina waa inay xukunka Soomaaliya ay la wareegtaa aad bay u fiicnaan lahayd waxaan ku soo gabagabaynayaa oo aan mar labaad ku celinaya war reer Soolow dagaalka iyo colaadda hal la joojiyo Soomaaliland ma kala soocmi karayso gobolka Sool oo Soomaaliland wada degto
انت هامود يا سومالنا بقى ككوبنتها أي وضع تالو قيب كميدة أو ربع كان نقونيسة مركا أفر ميلودو غيبية كيلوغا وأفر ربع كميدة أيا قبيل كانوا البهانتر ليلة هذا صدق ربع يا كلنا دقموينك يتولوينك أي كدقان قول كصوب البهانتر كلية صالها كنا ولاده وأنت كلها كبحضو ayay noqonaysaa ciidanka Soomaaliland ka baxo ciidanka Soomaaliland wuxuu wada ilaalinayaa shacbi weynaha Soomaaliland wuxuu gaar u sii ilaalinayaa gobolka Sool ha ka baxaan ma suurtoobiso garaad walba ku biyaan ina garaad cali ku biyaan haddii aad Soomaali oo dhan keento amka gooshaaraad soo qaadatay wad xaragoonaysaa waana soo dagaal tagtay maxaad caruurta u biinaysaa maxaad dadka wax magaratada ugu khamaaraysaa maxaad u biinaysaa maxaad u qixinaysaa maxaad biyaha uga jaraysaa maxaad leelka uga jaraysaa maxaad dadka u qaxinaysaa xitaa dharkii dagaalka ma sidatid adigu berina waad ka tagaysaa shantadaadii baad gacanta ku sidataa oo aad digi weyday ama hudheel ama guri oo aad la wareegaalaysanaysaa ummadnan ayaad qaxisay waxaan leeyahay ina garaad cali 7 sano ma dagaalami karaysaa 7 sano oo dambe hadda dagaalantay ciidanka Soomaaliland gobolka Sool kama baxin ku biyad Soomaaliland iyo uqaasheeda iyo wax galkeedu wali may dhaqaaqin ha dhaqaajin dadka dhiiga ha ku kicin waa tii bala laga qaada gobolka Sool ciidamada Soomaaliland kama baxaya haddaad 100 sano oo dambe ama 7 sano oo dambe dagaalami karayso bal weynu eeg waxaan ku soo gabagabaynayaa war ummadda gogasheedu waa nabad war ragga gogashiisu waa nabad war waxaynu ku xisaabtami karaynaa waa nabad war waxaynu ku wada noolaan karaynaana waa nabad garaadada iyo cuqaasha iyo waxgaradka soo imaamatay ee dagaal u soo imaamatay ee aan waliba dharkii dagaalka soo gashan ee iyagu hooshaaraya ee dhalinyarada ama caabud waa ka keen ama jigjiga ka keen ama goday ka keen ama Puntland ka keen war waa nabad war nabad aan ku wada noolaano waa wada leenahay gaar ahaan baynu u wada leenahay shacab ahaan baynu laascaanood u wada leenahay dawlad ahaan baynu u wada leenahay haddaynu lahaan kala soconno war ma kala socon karno lama kala sooci karo Soomaaliya iyo Soomaaliland baan la il darannahay oo aan kala soocoodii uu dib badan iyo hawl badan la galay laakiin qabiilka yar ee dhulbahantay ayaan ka soocayaa Soomaaliland inteeda kale war ma waalida jirta war aqliga miyaan shaqeynaa miyaa la riyooday ragani waa kuwama raggan dagaalka loo iclaamiyay waa kuwama raggan dagaalka loo sheegay waa kuwama raggan aad tiri waan la dagaalamaya waa kuwama taariikhda dib u raac taariikhda Soomaali marka dib loo raaco ciidanka Soomaali weyn xagee laga gurin jiray waxaynu ognahay Soomaaliya dawladihii u kala dambeeyay ilaa Ingiriiski ilaa Talyaanigi ilaa aadan cadde ilaa Siyaad Barre Soomaalidu dawlad kasta oo timaada ciidanka waxa loo soo doonay jiray Soomaaliland cidii ciidamada loo soo doonay jiray cidii deeqda loo soo doonay jiray cidii aftahamada loo soo doonay jiray cidii dagaal haday noqoto dagaalka loo soo doonay jiray cidda dagaalka loogu baaqay ee garaadada reer Sool ay dagaalka ugu baaqeen waa ayo waa kuwama raggu waa kuma waxa weeyaan waa la garanaya garaad kastaana wuu garanaya dagaal qori aaka iyo dad gocase iyo nin geershira iyo nin meel laga soo taxeelay dagaalkiisu reer Soomaaliland ma dhaqaajin karayaan ciidamada Soomaaliland ma dhaqaajin karayaan ciidamadu ha baxaan ayaa lagu waashay war waxaan leenahay ciidamadu waa joogayaan haydin deeqo ninka kun riyoon iyo ciidamada Soomaaliland ha baxaan ciidamada Soomaaliland way joogayaan iimaanso mijirka isku celi dadka ha qaxin inta hadhay qabo caana qubtayba dabadood la qabeeyay war dadka war inta dambe qabo garaad jaamac garaad ina garaad cali oo dadka qabo garaad Ismaaciil oo dadka daba qabta war dadka daba qabta goob lagu dagaalamo oo Soomaaliba haday isugu timaato ay ku dagaalanto bay laascaanood ahaanaysa goob lagu dagaalamo ayuu bay ahaanaysa 30 sano ayaa lagu tabcay war 30 sano oo dambe dib ha u celin kama lagama baxayo laascaanood haday burburto ciidanka Soomaaliland waa joogaya laascaanood horeynu u sheegnay haday dhismaysana ciidanka Soomaaliland wuu joogaya waxaan ku soo gabagabaynayaa war ilaahay aan ka baqno
dhiigga daadaadanayana hala joojiyo cidda sababta u hayna ha xisaabtanto wixii ay ugu shilistahayna ha samayso nabad bay ugu shilistahay nabad baanu haynaa nabad baanu ku baaqaynaa nabadda ayna deeqda haddii intaas la qaadan waayo waa ku celcelinaynaaye wixii ka soo baxa oo mamadeeda ayaa laga sheekayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo ar dambe ayaa laga sheekayn doonaa ina garaad cali sababta uu halkaa dagaalka uga riday 100 sano dambe ayaa laga sheekayn doonaa waanad fashilmi doontaa waanad ceebaabi doontaa inta dagaalka waday haddii aydan ka joogin hadda la dhowya wali shacab ma kicin wali dagaal ma dhicin wali cidimay dagaalamin tuur baa la yiraahdaa waxan dagaal maaha wali waa la idin baryaya wali waynu isjecelahay wali seediyo sodog baynu isulahay wali waynu isdhalay waru kaadiya wadagaalka joojiya war ilaahay ha laga boqo saasaan ku soo jeedinaa haddii ilaahay ka dhigo